munaasabaddan ballaaran ee abdicitaankeeda qurxoon looga soo shaqeeyay samarkaana loo giimgimay una reebanaysa oo bandhigidda deeqa waxbarasho oo ay bixinayaan jaamacada ku yaala dalka Malaysia gaar ahaan jaamacadda Malaya Wales oo ka mid ah jaamacadaha caanka ka ah dunida ayaa saaka lagu qabtay xarunta guud ee jaamacadda Hargeysa. halkani waa mid ka mid ah howlka ugu waaweyn ee ka dhex binaysa xarunta guud ee jaamacadda Hargeysa oo saaka si weyn ula circiriyay boqolaal ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee ku yaala gudaha Somaliland oo si weyn u daneynayay dhugashada dhawaaqyada ku aadan fursadahan waxbarasho ay bixiyeen jaamacadahan ku yaala dalka Malaysia. kuwaas isku xidhkooda iyo sidoo kale fudaydintooda qayb lixaad ka qaadanayaan madaxda iyo mas'uuliyiinta Quality Education and Training Consultancy waa company si weyn uga shaqeeya isku xidhka ardayda iyo sidoo kale jaamacadaha company ka diiwaan gashan dalka Malaysia. إذا مركنا قبل قبضة جودية سيدو كلا يجللي ده مناسبة عيد مدو رهبن وحنا نلقى وقورن كهذا إذا مركنا شرحات ديرية كبيهي برامج كان يسيدو كلا مراحل كيو صومري ماذا حقودة Quality Education and Training Consultancy دكتور عبد الله الديرية أربعة يتيجر كيف بصوب وصوص فريا مليشيا مريا مليشيا مركو يمادو وحنوصي ديارنا إن مركا ماشي مدقلها هذا هوستل تهاي هي هذا تهاي جوري دبده وقف أحسن جامعة ardaygi meeshii u degi lahaa oo diyaar ah ayuu imanaya airportkii waa laga soo qaadaya bartii loo habeeyay baa la dejinaya waxa loo sameeynaya registrationkii jaamacadda wada ogtiin wadankeena iyo iskuulada iyo jaamacaduhuba waxay u baahan yihiin in chanisiyo ama scholarship haadaan ama ha haadaan qiimo dhimis in loo raadiyo bay u baahan yihiin arinta ahdaafta company-ga la leeyahay ayay meel muhiim ah kaga jirtaa waxa jirtay jaamacad hore oo laba jeer keenay University of Hargeysa oo noqotay mar laba ay maraysaa July iyadoo laakiin scholarship-kaasi tartan buu baahan yahay iskuulada dhanna uu ka dhaxeeyaa qofkii full scholarship waayana discount baa la siinaya Malaya Wales iyada laftarkeedu maamulkeedu wuxuu naga yeelay in 30% ilaa 20% laga daayay ardayda doorkan baxaysa iyo kuwii hore u baxayba waxa uu dhanka kale Dr. Abdullahi Diiriye faahfaahin dheeriye ka bixiyay sababta uu xusheen jaamacadaha ku yaala dalka Malaysia iyo waxa lagu doortay jaamacadda Malaya and Wales afar qodob ku soo koobi karnaa arinta qodobka koowaad waa quality education sida ka muuqata magacayaga Malaysia waxay ku jirtaa 10ka wadan ee caalamka waxbarashada loo tago ayay ku jirtaa report-ka waxa soo saaray UNESCO waa wadan aad u degan nabad ahaan waa wadan muslina waa wadan cimiladiisu ay dhexdhexaad tahay kuleyl la ahayn qabowna ahayn waxaan filayaa in badankiinu maqasheen jaamacadda University Malaya ee Malaysia marka Malaysia laga hadlayo waa number 1 dhankiisa waxa isaguna halka ka hadlay Axmed Gool Cadde oo kamid ah madaxda sare ee jaamacadda Hargeysa isaguna ardayda ku dhiirigeliyay in dhankooda qayb ka noqdaan fursadahan u soo baxay una mahad celiyay madaxda company-ga Quality Education and Training Consultancy ururka waxbarashada ee QETC oo xaruntiisu ay tahay dalka Malaysia ururkaasi wuxuu halgamayaa in uu idinku hanuuniyo idinku gaadhgareeyo in aad noqotaan dad waxbartay oo waxbarashada u hanweyn oo meeshay doonto ha ahaato amba ha fogaato amba ha dhawaatee diyaar u ah inay aqoontooda kororsadaan dhankooda waxa iyaguna halka ka hadlay qaybo ka mid ah macallimiintii ka kala socotay dugsiyada Ilay Salaama Nuruddin Irshaad iyo sidoo kale Bahrain oo iyagu ahaa dugsiyadii u badnaa saaka ardaydii ka qayb gashay kulankaasi shirkado kale oo dhankooda qayb ka qaadanaya fudaydinta fiisaha iyo sidoo kale duulimaadka iyo sidoo kale arday ka soo qalin jabiyay jaamacadahaasi oo qaabkan wax ku soo bartay ayaa halka goobjoog ku ahaa iyaguna dhankooda hoosta ka xariiqay sida ay uga go'aantay inay garab istaagaan daayirta fursadaha waxbarasho ka hela jaamacadahaasi masraatnis oo ka socday jaamacadaha Malaya and Wales ayaa dhankiisa halkaasi ka jediyay khudbad ku aadan sida ka jaamacadan ay ku faraxsan yihiin in Somaliland gudaheeda xilligan ku sugan yihiin arday wax ku soo baratay jaamacadooda iyo jaamacadaha kale ku yaala dalka Malaysia farxad weyn u tahay dhankooda in mar kale ay arday halkan ku nool ay u fidiyaan deeqa waxbarasho isaguna ka sheekay maraaxilkii jaamacadan ay soo martay iyo guud ahaanba dalka Malaysia tan iyo laga soo bilaabo markii uu xornimada dib u helay. When the moment I arrive here, I see a lot of Malaysian graduates are working in different positions. So it is a big pleasure. It is big, what they call it, impressed. I'm impressed of Malaysian education.
dhankiisa waxaa isaguna halkaa ka hadlay agaasimaha guud wasaaradda arrimaha dibadda cabdinaasir axmed xirs oo ka mid ah ardaydii wax ku soo baratay jaamacadaha dalka Malaysia. Malaysia waa waddan islaam ah, waa waddan technology ahaan iyo dhaqaale ahaanba iminka wadamada South East Asia ama Far East Asia countries kale ugu horumarsan ka mid ah. ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhalatay 10 sano ama 15 sano u dambeeyay wax ka soo baratay ee waddanka ku soo noqotayna over 1000 way gaaraysaa baan aaminsanahay. dhammaantoodna waan odhan karaa haddaynan ahayn 99% ardayda halkaa wax ka soo baratay way wada shaqeeyaan ama jaamacadaha wax ka dhigaan ama corporate sector-ka ku jiraan ama dawladda ay u shaqeeyaan. marka waxaad halkaa ka arkaysaan quality education-ka Malaysia yaalla ayaad ka arkaysaan. ma aha markii ugu horeysay sidoo kale mas'uuliyiinta iyo sidoo kale madaxda kambanigan Quality Education and Training Consultancy ay gudaarkiisa ka shaaciyaan isla markaana ku soo bandhigaan deeqa waxbarasho oo ardayda ku nool Somaliland ay uga heleen jaamacada ku yaala dalka Malaysia. iyadoo horaantii sanadkii u hore una ahayd markii ay soo bandhigeen deeqa waxbarasho oo sidoo kale uga soo heleen jaamacada UCSI. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.